maadaama dhammaanteennaynu jecelnahay inaynu ka mid noqonno dadka guulaystay adduun iyo aakhiraba, inta badan su-aasha soo noqotaa waxay tahay tallaabooyinkee ayaan ku gaari karaa. haddaba waxaan jeclaystay fiidiyogan inaan kugula wadaago 4 shay oo qof kastoona ka mid ay muhiim u tahay inuu ilaaliyo habeenkii intuusan seexan ka hor. waa marka koobaad xalli khilaafka adiga rabbiga idin dhexeeya oo ah waajibaadka rabbi kuu diray oo dayacan iyagoo dayacan habeenkii ha seexan. waa qodobka labaad xusuusnow nicmooyinka rabbiga uu kuu galay. waxaad xusuusnaataa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu 9 bilood uurka hooyada kugu soo hayay. waxaad xusuusnaataa ilaahay tabaaraka wa tacaala wax fara badan oo aadan ka maarmin ayuu ku siiyey adigoon weydiisan. qodobka saddexaad wuxuu yahay allah tabaaraka wa tacaala dembi dhaaf weydiiso. in fara badan dunuubta iska dhin, maxaa yeelay dunuubta oo la iska dhimo iyo dembi dhaaf oo ilaahay subxaanahu wa tacaala la weydiisto albaabo fara badan ayaa addoonka loogu furaa. qodobka ugu dambeeya wuxuu yahay dadka iska cafi, maxaa yeelay sifada wanaagga cidda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay oo uu siiyey waa dadka iska cafiya. cidda keliya oo kunansata dabeecadahaas ayaana ah kuwa guulaystay adduun iyo aakhiraba.